ها hadda waa goor casar ah anigana sida caadada ii ah waxaan ka soo baxay iridda ama albaabka gurigayga anigoo u sii jeeda dhanka masjidka si aan salaada casar u soo tukado qof waliba oo jidka maraya wuxuu u socdaa masjidka xaafadda ee Sheekh Cali uu tujiyo goortii aan gaaray masjidka waxaan halkaas ku arkay dhalinyaro badan oo waajibaadka salaada gudanaysa balse si kadiisa waxay indhahaygu u qabteen oday waayeel ah oo keligiisa quraan akhrinaya waan aqoonsaday isaga maalin waliba halkaas ayuu fariistaa waliba keligiisa si la mid ah maalin waliba wuxuu akhriyaa quraanka waa yaab sidoo kale odaygan mar waliba oo aad aragto wuxuu leeyahay muuqaal soo jiidasho leh dadkoo dhanna way ku soo leexdaan markay arkaan waa duq oo waa kan ugu daada weyn ee masjidka ku tukada balse waxa cajiibka ah inuu yahay kan ugu qurxoon looguna jecel yahay masjidka xaafadda isla goortiiba dhankiisa ayaan u dhaqaaqay si naxariis leh oo waalidnimo ku jirta ayuu ii dhahay halkan soo fariisa wiilkaygiiyow waan fariista aniga oo maanka ku haya su'aalo dhowr ah sababta uu mar waliba u yahay kan ugu soo horeeya ee masjidka yimaada balse intii aanan wax hadal ku bilaabin ayuu gacanteeda midig qabtay wuxuuna dhahay wiilkaygiiyow dhegayso wiilkaygiiyow hadda waxaan ku siinayaa hubkaaga sidoo kale xornimadaada ayaan ku siinayaa oo maxay tahay hubkaas sidoo kale xornimo miyaa iga maqan ayaan si cod sare leh ugu yiri si qurxoon oo aanan ka filanaynin ayuu u dhoola cadeeyay inta uu hoos eegay ayuu yiri waan ku siinayaa hubkaaga oo ah xigmadaha iyo samirka sidoo kale waxaan ku siinayaa xornimadaada oo ah cafiska iyo dhoola cadeynta markaas cabaar ayaan kala aamusnay balse intii aan salaada la aqmin waxaan weydiiyay su'aal oo ahayd maxay tahay sirta waayeelnimadaada u bedesha dhalinyaranimo maxay tahay sirta gabowgaaga iyo taagdaradaada u bedesha awood iyo tamar si kalsooni leh ayuu ii soo eegay wuxuuna igu yiri way i dulmiyaan wayna i caayaan waxayna igu dhahaan kii duqa ahaayow balse waan u dhoola cadeeyaa markaas ayay u kala dheereeyaan inay cafis iga dalbaan waxay isweydiiyaan sababtay u caajisan yihiin waxay mararka qaar isku malayaan inay jiran yihiin balse aniga goor hore ayaan toosaa markaas ayaan qoraa riyooyinkayga markay arkaan riyooyinkaygii aan qoray xilli ay hurdeen aad ayay ula yaabaan markaas ayay bilaabaan inay i sharfaan waxayna u soo kala dheereeyaan inay su'aalo i weydiiyaan inta uu madaxiisa ii soo dhoweeyey ayuu igu yidhi sirta guusha waa 4 1 goor hore oo aad toosto 2 alle oo aad in badan u noqoto 3 kuwa ku gafa oo aad cafido una dhoola cadayso iyo xigmadaha ood u qaadata sida cuntada